maahi waxaan ahay difaaca qadiyadda baarlamaanka iyo maaragtay difaaca qarannimada dalka. waayahay mooshin baa laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka Professor Jawaari adigu xildhibaanada keenay ma ku raacsan tahay oo ma ku taageersan tahay in mooshinka laga soo gudbiyo xilligan? mooshin aniga ma keenin mana taageerayo cidda wado. waan gartay waa kaada moshinku haddii aad akhrisay waxyaabaha ay u sababeynayaan in gudoonka golaha shacabku ay keentay inay mooshinka keenaan maxaad ka qabtaa adigu? baan maaragtay arrintaas uga soo horjeedaa xilliga oo xasaasi ah iyo qaabka barnaamijku waa abaabulmay waxaan uga soo horjeedo golo fulin oo weerar ku ah golihii maaragtay sharci dejinta dalka golihii keenay madaxweynaha dhalay doorasho xor ah annagoo matalayna shacabka golihii ra-iisul wasaaraha ansixiyey golihii ansixiyey golihii wasiirada mar alla markii lasoo doortay oo ra-iisul wasaaraha uu soo xulay si aqlabiyada ku ansixiyey ayaa la rabaa maanta in la kala diro waxa wax soo weerarayna maaragtay waa qoladii aan dhalnay. marka xildhibaano badan maamudana xildhibaan sidaada oo kale oo hadlaya oo qaba fikirka ah in golaha fulinta ay wadaan mooshinka ka dhanka ah gudoomiye Jawaari ilaa hadda ma hayno wasiir ka tirsan xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha qudhiisa oo si toos ah u hadlay sida Jawaari hadda uu hawada ka shaaciyay oo kale. marka idinku maxaa cadayna oo haysaan in xukuumaddu ay mooshinka ka dambayso? cadayn waxaan keeni doonaa hadduu aleedno cadayntaas waa la hayaa wax qarsoon ma aha. cadaymaheeduna waxay imaan doontaa golaha baarlamaanka maalinta lasoo hordhigo wasiirada meeshay ugu qoran yihiin golaha fulinta meeshay ugu qoran yihiin mooshinka ayaa la arki doonaa wax qarsoomi doona maaha. shacabka soomaaliyeed way arki doonaan mar alla markii mooshinka la hor keeno golaha baarlamaanka ay noqoto in kalsoonida loo celiyo gudoomiyaha baarlamaanka ee mooshinka laga keenay inuu fuul u helo iyo inuu ku waayo markay imaanayso ayaa maaragtay arrintaas fashilmi doonta. inta ka horeyso dowladnimada waa inaan laga tegin wax walboo dhaco waa inaan wax xildhibaanada magacyadooda aanan la shaacinin wax muhiima ma aha in maxaa cadayn haysaa cadayn way imaan doontaa golaha shacabkeena hor imaan doonta insha allah. waaya laakiin dhinaca kale golaha shacabku si caadiga ah toddobaadkiiba 2 maalmood markay horta ama 3 maalmood marka uu kala fadhiga furan yahay ay kulmi jireen laga soo bilaabo maalintii aad ansixiseen heshiiskii dalka ama xeerka dalka looga mamnuucay shirkadda DP World wax kulna oo aad yeelateen ma laha marka laga soo tago kulamada goonida iyo mooshinka meel walba la riixayo in aad yeelataan kulan golaha shacabka ama mooshin hala keeno ama yaan la keenin maxaa hortaagan? adeer horta xariifaa tahay oo maaragtay barnaamijka adaa aada u iftiimiyey caqabada meeshay ka jirtana waa barnaamijkaas DP World iyo sababta looga eriyey dalka looga mamnuucay ee aan ka codaynay ayaa maaragtay dhibaatada ka taagan tahay oo loo go'aansaday in xildhibaanada lagu kaco loo go'aansaday in maaragtay afduub uu ka dhaco meesha oo gudoomiyihii la afgambiyo ay ku dhacday in golihii baarlamaanka la geeyo ciidan boliis ah ama military ah waxay yihiin ma naqaane iyadoo laga qaaday ciidankii boliiska tababarka u lahaa ilaalinta golaha shacabka iyo xildhibaanada ku dhex suganba iyadoo laga qaaday digniin la-aan taasoo sharciga ka baxsan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku shaqo leh walooyinka amniga meesha waxay ku leeyihiin gunno waxay ku leeyihiin xuquuq ay ku leeyihiin baarlamaanka shaqaale joogtay soo ahaayeen sida xildhibaanadii hore la shaqeeyeen oo teeramka 9aad xildhibaanada teeramka 10aad la shaqeynayaan kuwa 8aad la soo shaqeeyeen dad xuquuq leh maaragtay meesha ku qornaa oo kala yaqaano shakhsi kasta oo xildhibaan ah iyo shaqaalaha baarlamaanka intaba. marka digniin la-aan haddii lagu qaaday ala ay xaal muhiimadda waxa weeye sharciga lama waafajinayo arrimaha socda ee dalka ka socda marka sharciga ku fadhiyaan mal kulankiina goormee hadda la rajaynaya inaad ugu yaraan kulan yeelataan howlo badan baa idin sugaya ka sokow mooshinada hadda idin hor yaalla xantu xataa waxa ay tahay in ay jiraan xildhibaano idin ka mid ah oo mooshin ka diyaariyay xukuumadda inkastoo aan la shaacinin golahan aan soo hordhigin weli xogtaas ma hayno cidii xukuumadda mooshin ka keentay soo bixi doontaa laakiin war cad oo sugan maaha arrintaas
ognahayna male anigan kuma hadlayaa la yiri wuxuu ka mid yahay xildhibaanada saxiixay xukuumadda mooshinka keenu ku jiraa la yiri wax ka jira oo sadiyo raad maaragtay ay leedahay oo maaragtay maanta lagu doodi karana ma jiro marka adeer imaanshaha golaha shacabka waxay ku xiran tahay soomaalida waxay tiraahdaa geel dadaayo waxna lagama dhex qabto mas-uuliyiin maaragtay dalka maaha maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya maaha madaxweynaha qaranka waxay ahayd inuu odaygii dalka waaye astaanta maaragtay qaranka waaye inuu soo dhexgalo way ahayd laakiin maanta waxaa soo gurmaday oo arrimaha meel wanaagsan ay u marayaan gudoomiyihii iyo guddi la socdo gudoomiyihii iyo ku-xigeenkii aqalka sare kaasi waxa uu ahaa